magacaabo Caduuro oo magaalada Qardho u jirta 18 kiiloomitir kana jirta dhanka koonfureed ayaa waxa ka dhacay shil gaari. Shilkan gaari ayaa yimi kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kala ah booyad iyo dhayne. Labada gaari midna marayay laamiga halka kan kalena uu ka yimi wadada rafka. waxaana ku dhaawacmay 11 qof oo iskugu jira rag iyo dumar. Dhaawacan ayaa la dhigay Cisbitaalka Guud ee magaalada Qardho. waxaana ka warbixiyay maamulka Cisbitaalka Guud ee magaalada Qardho. waxa isna halka gaaray oo saxaafadda la hadlay gudoomiyaha degmada Qardho. dhaawac la keenay ilaa 11 qof ah. dhaawacyadaas waxay isugu jireen dhaawacyo waxay soo badnaayeen dhaawacyo fudud. ilaa 3 dhaawac baad moodaa inay ugu yaraa cuslaayeen. dhaawacyadaas runtii tan iyo xalay aad baa loola tacaalay. 8 kamid ah dhaawacyadoodu waxay noqdeen dhaawacyo aad u roon. 3 kalena hadda saakay waxaan dhaawacyadoodu ku wasatalo xaaladoodu gacanta lagu hayo waana ay fiican yihiin waana meel qabaan. way jiraan burbur badan oo soo gaaray xagga jirka laakiin jabnin badan inuu soo jirin ma jecelahay qayb muraayada xalaq dhacay meel dhowr kiiloomitir meel u jirta magaalada Qardho halkaas oo sida loo sheegay laba gaari oo midna uu yahay dhayne midna uu yahay booyad ay isku dhaceen saakar aan tagnay meeshii oo ahay inuu ka dhacday oo aan traffic iyo wixii mas'uuliyiinta meeshii la tagay lana soo cabiray shuu ahaa waxaan rajaynayaa insha Allah taala inay iyada wax soo baxaa dib qoladii Allah shaqeeyay hawdan hawshooda istaaqada soo maray runtii dadka dhaawac ahaa ilaa 11 qof meelaha ilaa 11 qof dhaawacyadu kala duwanaayeen waxaa lagu doonayaa isbitaalka ilaa iyo markii la keenay shaqaalaha iyo dhakhaatiirta iyo mas'uuliyiinta isbitaalka ay gacanta ku hayay runtii waxa weeye si fiican wax garlaana ay loo daweeyay. Maxamuud Yuusuf Maxamuud Home Cable TV magaalada Qardho.